noocyo kala gedisan ayuu lahaa maalin safar ah iyo sidoo kale waqti yar kadib xafadeeyo nasiina maalinkeeni koowaad waxaan oo bilowday waxbarashadeeni. Braille literacy contributes to empowerment of persons with disability in a way that first it's the writing and reading mode that they understand. So they are able to express themselves, accept who they are, fight for their rights, advocate for their rights in the society. anagoo muqdisho ka nimaanay dhalinyaro Soomaaliyeed aad ugu baahnayn inaan helno mishiimadan aqoon aan dadkayga dib ugu celino. waxaan rajaynaynaa anagoo dib idinkaga soo sheegi doono markii noo dhamaado seminaarku. runtii wax aad iyo aad u wanaagsan ayaanu baranay wixii ugu muhiimsanaa haddii aan ka xuso waxyaabaha aan maanta iyo shalay baranay mishiimada oo muhiim noo ahaa oo halkan ka muuqda arkaysaan ayaa aad iyo aad waxay igu hayeen aniga jacayl zaa'ida oo aan daneynayay inaan barto kadibna aan dadkaygii dhalinyarada Soomaaliyeed ee baahida weyn u qabtay ku celiyo. waxaan rajaynayaa wixii cilmi ahaa oo halkan aan ka bartay inaan ugu deeqo ugu adeego dhalinyarada aragala ee Muqdisho ku nool. si kastaba waxay tani igu dhiirigelinaysaa in aan maalmo iyo marar kala duwan aan hormariyo xirfadeeda si aan ugu deeqo uguna adeego dhalinyarada aragala ee aanan helin fursadda aniga aan helay ee ku nool guud ahaan dalka dacladiisa kala duwan. Braille training will empower persons with the visual impairment to be able to access education, because without that they will be like guests in the classroom. Let us try to encourage them embrace technology, because for most people without disabilities, technology makes life possible. But for people with disabilities, technology makes life easier. waxyaabihii aan baranay intaan halkan joognay waxaa ka mid ahaa kow warqadaha loo isticmaalo mishiimada wax loogu daabaco dadka aragala ama aragooda hooseeyo qaybaha u qaybsamaan. si kooban habka loogu daabaco mishiinadan waraaqadaha dadka aragala noocyada mishiinada waraaqaha noocyada ay qaataan sidoo kale maaragtay software-rada dadka aragala oo qoraalka ugu bedela Braille iyo kuwa Braille intay ka bedelaan qoraal caadi text caadi u bedela ayaynu qaadanay. marka si kastaba ha ahaatee waxaan dhihi karnaa waxaan meeshan muddadii 5 maalin aan joognay aan ka qaadanay khibrad dhameystiran sida wax loogu daabaco dadka aragala agabkooda. mashiinadii aan bartay waxa iigu xiiso badnaa mashiinka kii ugu dambeeyay ee isticmaalayaan qaybta jaamacadda aan ka joogno ee disability-ga qaabilsan kaasoo daabacaya imtixaanada qaranka oo dhan ardayda naafada ah. mashiinkaasoo halkii mar daabacay 300 oo page ayuu daabacaya wuxuuna ka casrisan yahay mashiinadii hore oo dhan. waa mashiinka kii ugu dambeeyay marka kaas aad ii xiiso geliyay oo aan dareemayo baahidiisa inay dalka ka jirto. Participants gained the knowledge on how to operate and use a Braille embosser. They gained the knowledge on embossing their work or information. They gained the knowledge on proofreading, and also they were able to learn how to maintain the Braille embosser.
waxaan rajeynayaa wixii cilmi ahaa oo halkan aan ka bartay inaan ugu deeqo ugu adeego dhalinyarada aragala ee Muqdisho ku nool ardaydaas waxaa loo qaban jiray macallimiin tusaale ahaan imtixaanka wuxuu ku qoran yahay qoraalkii caadiga ahaa ee isla naqaanay oo printerka ahaa macalinka wuxuu u akhrinayaa ardayga su'aasha markuu u akhriyo macalinka ardayga wuxuu bixinayaa jawaabtii oo by oral ah macalinka markuu qoraya sometimes waxaa laga yaabaa qofkaas caawinaya ee loo soo qabtay in yacni erayadii insaan waaye wax ka mida ka tago maybe inuu spellingkii uu qaldo ama maxaa la dhahaye laba su'aalood oo kaleeto inuu isweydaariyo marka ardayga meesha wuxuu kala kulmi karaa in uu qayb ka mida yacni natiijadiisii uu ku waayo oo meeshaasna waxay noqonaysaa ardaygaas in loo geystay tacaddi ayagu way dadaalayaan laakiin haddii mashiinkaa la heli lahaa waxaa lagaga maarmi lahaa in qof kale uu ardaygaas yacni caawiyo comes with the obligations to make education inclusive and accessible for different categories of disabilities. muhiim bay tahay waayo aqoontan halkan ka helnay waxay saacidaysaa inaan mar kasta ilaalino sida ay qaramada midoobay marba u ilaalinayso xuquuqda bini'aadamka annaguna inaan ilaalino xuquuqda dadkeega naafada Soomaaliyeed oo waxaan cilmigan halkan ka qaadanay si cadaalad oo sinaan ah aan dadka ugu celino oo aan group gooniya iyo hadii la koox gooni aan siine aynu cid kasta oo Soomaaliyeed oo naafa ah gaar ahaan aragga naafa ka ah aqoontan halkan ka qaadanay tababarkan waxaan ka faa'iideysan inaan uga faa'iideyno markastana waxaan ku qasbanahay inaan ilaalino xuquuqda bini'aadamka gaar ahaan dadkeega inaan ilaalino sida ay qaramadooda xil iskaga saartay ilaalinta xaqa bini'aadamka kuwaas oo u muuqdo kuwa lagu iska iloobay future-ka rajadeedu waxay tahay in la waayo ma dhihi karo in waa la weyn doonaa laakiin in la dhimo oo la yareeyo oo aan ku dadaalno oo aan u ololeeno in ay meesha ka baxdo ama wax ku dhow 50% ay isaga baxaan caqabadaha ay la kulmayaan dadka naafada qof kasta oo naafa ah uu heli karo accessibility saxda ah ee loogu talagalay haddii ay tahay jaranjarooyinka in meesha laga saaro goobaha ganacsiyada haddii ay tahay in goobaha waxbarashada goobo loo dhan yahay ay noqdaan marka si guud filashadeeda ama doonisteeda ama rajadeeda mustaqbalka waa in la helaa full inclusivity ka qaybgal bulsho oo loo dhan yahay